waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ka dhacay kulan weyn ay isugu yimaadeen waxa garadka salaadiinta iyo odayaasha beesha ile oo kamid ah beelaha deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya kulanka ayaa ahaa mid socday muddo waxaana ya ayyuha alladhina aamanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha ila tawbiya lil qoy yalla baahay iyo waliba dhinaca arrimaha bulshada mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed oo lagu magacaabo beesha Eyle أملا شمرتي جيب وبدي نقول ودي همين وبدي ولي بوبدي كرشة كجرد جيب ولي نحن كلوني الحمد لله لبعض النفتكار نقبتي عودي إني الحمد لله إن شاء الله دولة ده إن شاء الله وكفر كجا لا دولة إني هجازني أول يجيب معروف ولا يجيب عبد العزيز نفتكره هدي أنا تو ولا نمدان فلاسان ولا نمدان فلاسان ولا يخاض النروجيا وترتنا وإنسانه لمن تاسد وفدلين ته والأري ما يفدانه ونحقانه موقن حقانه فدانه أي لقوانه لن والقوة ده ودنكن والانتراو دولتنا والانتراو يلقوان ونشينان غير وني لقواني عدنا كي ون والبني ينقبض هاي بناء كان نوجره من مثله لكن لن الله لن كي دولتنا والانقبض هاو دلكن والانقبض هاو دتكن والانقبض هاو كاسل جان قادن الصومالي هور انتر ارتفضان ما هيت انتر ارتفضان oo hadana roog masan lama tala odayaal kana lan geeg lan aqoon Soomaaliya lan dhalinyaro aqoon Soomaaliya lan odayaal aqoon Soomaaliya lan qimeel ka jir lan oo shakhsi shaandada oo meel jeesidiyo shakhsigu shaandada lay gorada iyo intu sahabi ma lay ka salam beel ka mada ma qasaw ma nu gorado geeg lan qabiilka ka mada dib hajeysida masdib isku arag masdib lu qabad lan walan qabado maslan dan qado ma lan kili hiroba usan insadan intu station shaad lan sadii ma jirta shakhsi ahaan geeg Baydhabo lan kubadan ma lan oo geeg Baydhabo afarta qabl afarta xaafadood حافظ يلن كمقع دروبة جرت بالي لان وصدق يجوز أقوى مثلاً كقصوا ما لا دليل لما قصوا أضيال لما قصوا كل جست